koonfurta Kuuriya oo xaalad degdega iyo bandow gashay qalalaasa siyaasadeedna qarka u saaran ayaynu xubinta koowaad ee barnaamijkeena ku eegi doonaa. Ukraine oo muddo dheer baadi goobaysay inay xubin ka noqoto dalada weyn oo NATO oo iyaduna xaalad adag wajahaysa loona diidan yahay ayaanu eegaynaa wadamada ka soo horjeeda arrintaas iyo sababtay ugaga soo horjeedaan xilli ciidamada dowladda dalka Ruushka ah ay deegaamo fara badan ay qabsanayaan. madaxweynaha dalka Ruushka Putin iyo dhigiisa Turkiga ayaa khadka taleefanka kaga hadlay xaaladda ka taagan dalka Suuriya xilli anyone xaalado fara badan oo siyaasadeed ay ku furan yihiin cabsi weyn oo uu qabo in Kurdistaanka markaas ay ishayaan iyo jamhadaha lagu soo hubeeyo. si aanu arrimahaas haddaba wax uga ogaano daawadayaal maanta oo taariikhdu ay tahay 4 bisha 12 sanadka 2024 ustaad maxamed cawaale ayaa barnaamijka igu martiya oo baryahan aanu kala maqnayn meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada. ustaad marka hore aanu ku bilownaa dalka South Korea xaalad qalalaasa siyaasadeed ayaa ka taagan qarkana waxa uu saaran yahay ayaa la leeyahay dalku markaas in uu gacan kala galo oo weji kan haatan ka foolxun uu yahay xaaladdu isku bedesho maxaynu kala socnaa waxa taagan. bismillahir rahmanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Cabdi Xaafid waan ku salaamayaa dhammaan staafkaaga Bridge Somali TV iyo shacabka Soomaaliyeed waan salaamayaa. Cabdi Xaafid waa runtaada maalimahan boorta waxa jiray qalalaasa siyaasadeed maxaa yeelay Korea waxa madaxweyne noqday oo la doortay 2022 madaxweyne la yiraahdo Yoon loo yaqaano. madaxweynahaasi wuxuu ka socdaa xisbi la yiraahdo People's Power ado Conservative People Power laakiinse waxa dhacday dhawaan waxa laga badiyay baarlamaanka baa laga batay macaaridkii baa ka batay macaaridkii oo ilaa aan idhaahdo saddex qaybood hadii loo qaybiyo laba qaybood ay haystaan baarlamaankii waxa isaga ku adkaatay sharciyadii uu doonay inuu marsado dhanba u mari weeyday maxaa yeelay South Korea markii dagaalka labaad kadib ee la kala saaray koontaradii iyo North Korea waa wadanadii ay reer galbeedku aad waliba khaasaan Mareykanku uu aad u taageeri jiray si ay communist u noqonin. marka gigtu ugu horeysay waxa haysan jiray niman military laakiin nimankaas waxa loogu yeeri jiray benevolent leader baa loo jiray waa madaxda dictatorada ah laakiin anfacaad kale wax dalku ugu qabtay sida daraadeed waxay ku soo gaadhay. haddii ku soo noqdo waxa imika socda baarlamaankii markuu marin kari waayay ilaa 2024 maanta joogno wuxuu goostay dhawaan inuu ku dhawaaqo bandow waxay Soomaalida u taqaano bandow oo militarigii ku dhiirigeliyay in baarlamaanka la banido cidna ay soo bixi karin. laakiin nasiib daro ciidankii markay yimaadeen helicopter bay dul fadhiisteen baarlamaankii kolkiiba laakiin waxa ka faa'iideystay macaaridkii baarlamaanka South Korea waa 300 oo xildhibaan 190 oo xildhibaanadii macaaridka waxay codeeyeen bandowgaasi inay waxba ka jirin isaguna ilaahay markuu ku adkaysanaya marka waxa laga cabsi qabaa hadday sida isku sii hirdiyaan oo wax tanaasul iman waayo waxa u badan tahay sidii waayo South Korea inuu military wala wado. waayahay haddii aynu eegno mucaaradka waxaa lagu eedeynayaa inay u janjeeraan dhinaca North Korea oo communist ah isla mar ahaantaasna gacan saar la Shiinaha Mareykankana ay si adag isku hayaan gacan saar la Shiinaha iyo Ruushka si adagna ay isku hayaan Mareykanka oo asaga laftigiisu saaxiib la asal horey u sheegtay. arrintaas maxaa kaaga baxay wax ma ka jiraan mise waa arrin uu wax ku meel marsanayo? horta madaxweynaha South Korea arrinkaasi waxba kama jiraan oo macaaridku haddaad eegtid xitaa jaraa'idada Ingiriiska ka soo baxa South Korea qudheeda oo macaaridku ay ku codeeyeen inkastoo isagii maanta uu madaxweyne yahay oo sabcadiisii ka dheertay laakiin way beenayeen arrinka waxay yiraahdeen waa arrimo uu doonayo inuu dictator noqdo
wuxuu rabaa bay yidhaahdeen wuxuu doonayo inuu marsado kamana yeelayno waa unconstitutional oo dastuurka dalku ka soo horjeeda mana yeelayno isaga iminka xitaa waxay doonayaan inay u codeeyaan in isaga xitaa impeachment lagu sameeyo laga saaro isaguna wuxuuba siduu uu dalka u qabsado military isaga wareejiyey oo iminka bandoogii dee shaqada qabanaya marka waxay qarka u saaran yihiin cabdixaafid inuu afgembiga ka dhaco dhowrka cisho soo socda waa goorti fiican waxaan rabaa inaan xubintaas intaas uga gudubno daawadayaal waxaa noo soo socdo qodobka weyn ee ku saabsan labada madaxweyne ee dalka turkiga iyo dhibgiisa ruushka oo markaa khadka taleefonka arrinta syria kaga hadlay oo xaaladdu ay saacadba saacadda ka dambaysay si la yaab leh ay isku bedbedelayso cabsi fara badan ay jirta ayaa noo soo socda balse intaa ka hor maxamed marka hore haddii aynu eegno ukraine waxay doonaysa inay nato ka mid noqoto laakiin yurub iskuma wada raacsana cabdixaafid arrin cajiibaa dhacay waxaan u malaynayaa taas saameyn waxa ku leh doorashadii Donald Trump jaraa'idka la yidhaahdo Le Monde ee Faransiiska isagoo inkastoo iminka qoraalkoogii oo Faransiisa baan akhriyey ta kalena aan akhriyey RTG oo soo qaadatay waxa shock ku noqotay aba indhagax ku noqotay Zelensky oo ka bayca mushtareynayay dagaalkani ilaa iyo waagu uu dhacay oo lacag badan aan laga sameynay wuxuu ka naxay dalka Maraykanka Hungary iyo Jarmalku inay yidhaahdeen annagu waan ka soo horjeednaa inuu maaragtay neeto lagu daro waayo uma aragno xal maxaase isbedelay waxa dhacaya next week waxaan malaynayaa toddobaadkan waxa dhici doona shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee NATO taasi waxay ku noqotay wajigabax weyn xitaa Zelensky wuxuu ka codsaday dhawaan xitaa NATO inay siiyaan gantaalada anti-aerial la yidhaha diyaaradaha lagu soo rido waayo wuxuu yidhi dalkii korontadii wixii maaragtay infrastructurekii korontado dhan ba ruushku ay naga burburiyeen haddii tole mugdi baan ku jirnaa waxaan u baahanay buu inay si degdega noola soo gaaraan laakiin nimankii waxaad moodaa dowladihii Jarmalka iyo xitaa waxaa la leeyahay Faransiiska UK ba inay ku raacaan waxay yidhahdeen hawshu sidaan moodaynay maaha mana shaqaynayso maxamed rallo arrintaan ma dhihi karaa Joe Biden waxay ku tahay dhabar jab weyn markii Yurub qaar ka mid ah ay kasoo horjeesteen in NATO lagu daray Ukraine dabcan maanta waxay leeyihiinba dowladdii Biden aad iyo aad bay u dhibtay laakiin iyagu u dhowdo waxaad moodaa bay yidhahdeen ugu dambeyn xitaa ilaa ilbaabka ka xidhanayaan ay raalli ka ahayn isagu wuxuu rabay inuu u dardargeliyo Zelensky wuxuu rabay inuu Biden u dardargeliyo dowladaha Yurubta inay si degdeg ugu codeeyaan laakiin uu ka diiday waayo taasi waxay ku kalifaysaa waa in Congress-ka la mariyaa Congress-kana ma marayso oo uma ogolaanayaan waxaba adkaanaysaba xitaa hadhow tole iminka hadduu isagu u ogolaado wuu ka diidayaa markuu yimaado haddayna wixii baarlaman marin ay sanadka weliba ay marin wuu ka diidi doonaa Donald Trump marka meeshii waxay u badan tahay inuu Donald Trump siduu rabay u dhici doonto in xagga frontka la iska joojiyo amba maaragtay dhanka dagaalka kaga socda ilaa waxaan dagaalkani Ukraine waa la isticmaalayaa waxa dagaalamaya waa wadanadii maaragtay NATO hubkii bixinay xitaa dad maxamed kaan dhexgalay Ukraine waxaa lagu soo warramayaa sidoo uu sheegay Colonel Douglas McGregor ku dhawaad 600 oo kun oo askari laga dilay iyo tiro kalena laga dhaawacay dhaawacaas oo sheegay inuu yahay mid joogto ah dadka qaar xubnihii la jaray ciidamada oo weligood ay markaas lixdooda lixaad aysan u dhammaystirnaynin dhaawac fara badan ayaa soo gaaray iyo dhimasho iyo khasaaro burbur muddo dheer socday 2 sano iyo ka badan 3 sano haatan qarka u sii saaran marka aynu eegno midowga NATO Ukraine dagaalka ay gadaal ka riixayaan ay garabka ku siinayaan ma ku guuleysteen mise waa ku guul daraysteen way ku jabeen aad iyo aad bay ugu jabeen siduu sheegaya Colonel McGregor Ukraine xitaa way qariyaan wararka xitaa iminka dadka u faafiyaan Ukraine way iska celinaysaa waa been wala baabiyay Ukraine ciidan ma haystaan waxa iminka xitaa meelaha gantaalada la sii u turtuuro
وعسكرتي مارتي رجال بيت وليبا مارتي سردونكو أي وطان لكن إوكرين إسكمرنا بكرار روشكا إميكا حتى وحي هوسان حتى قدرت سيلنسكي markuu adeecadaha soo joogsado handadaya raganimo iska raadinaya waxa imika uu joogaa in haddii ruushku ay uga baxaan dhulka kaloo dhan ay u ogolaanayaan 25% dhulkii ruushku ay deganayeen shacabka ruushka halka ay ugu yarhay MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga وفنانته iyo amaanada kan iskaarak MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaad hadaba kala soo daga Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada وهاك محمد هدي أنه هاتين وجودنا خدك تلفون كبوتين يا مدعوينها دلك تركيا إلوان أي قوة هاللين أرموا وين وحساسية لجا هاللي محينو كلا صعنا أرمها سمرك هورا سيريا قصية وما حيس والولك يعبسده وقبل مدعوينها دلك تركيا horta waa runtaada wada telefoon bay ku wada hadleen sida ay sheegayaan saxaafadaha waliba ruushka waayo anu waxaan isku dayaa inaan balance gareeyo wargeysyada qaarkood markaan akhrinayo wargeysyada reer galbeedka aad baan uga walwalaa waayo intooda badiya waa propaganda laakiinse marka sida ay sheegayaan saxaafadahan odhan karo wax war macquula ka soo baxaya horta aad buu uga xanaaqsanaa putin muu filaynin Erdogan inuu nimankani uu la safarayo Israa'iil iyo maartay Mareykanka laakiin wuxuu shulgareeyay waxa isaga على dadka aan la socon sidii u fahmaan maxaa la jeedaa wuxuu la saftay Israa'iil iyo Mareykanka Erdogan waxa taa in cadeynaysa مثلا si laba filaan oo baa dagaalkii Suuriya ee jahbadii lagu soo kicinayay dawladda Suuriya oo ay kacday maxaa iswaa in la isweydiiyaa maxaa dulba keenay maxaa keenaysa ciidan idilo jahbadii idilo xoog oo hubka sitaan hub caana jahbadii waligeed wadda inta lagma yeelato haddana reer galbeedku dibadda ay ka maalgelinayaan iyo Israa'iil taas way cadaatay laakiin wuxuu uga jeedaa isagina dhab uu ka galay muxuu ka baqayay oo Erdogan isagu uga cabsi qaba waxa jira jaabada la yiraahdo Kurdistan ilaa waligeedba xagga ka in loo soo hubeeyo oo isagana lagu baabiyo iyo waxa culays weyn ku haya qaxootigan badan Turkiga ku nool tanka iyo oo dawladda Turkiga ay si adag isku hayaan muddo dheer iyo Netanyahu xiriir ka dhaxeeya ma jira dabcan ha iyo Mareykanka iyaga waxay timaa dhiirigeliya iyaga tababari jiray iyaga imkada hubkan u keenay iyagoo xitaa kuwa Kurdistan ku qura maaha Cabdixaafidow xitaa waxa jira kuwa sunniya oo sunni sheegta inkastay u badan yihiin hogaamiyaashoodu waa niman carab oo Mossad oo Yahuuda sidii kii berigii ISIS madax buu ka hay lahaayeen waxani waa shaqada sirdoonka ujeedada looga daleeyahay in horta waxa la rabaa mandaqada in laga bilaabo Syria Iraq Lebanon ilaa xitaa Sacuudiga in dalal yar yar laga dhigaa Cabdixaafidow waxa markii labaad baa la doonayaa 19 ilaa iminka la isku dayaya waayo sida ay u degantay mandaqada bariga dhexe ee wadanadan carabta 1920 baa la sameeyay waxa sameeyay Faransiis iyo Ingiriis laba nin oo wali mid Ingiriis oo askari iyo Faransiis Picard iyo ninka kale magaciisa waxa si Ingiriis ragaba markaas soo sameeyay sidii status code loo sameeyay Zionismka kuma faraxsan waliba Israa'iil waxay leeyihiin wadanadan seen u jira oo waqtigu maanta isbedelay dan annaga nooma marka waxay rabaa Syria inay ka dhigaan 3 dal hadday dalal u mari weydana waxa la rabaa in laga dhigo Kurdiska meel loo gooyo iyo laba qaybood oo kale oo Bashar al-Assadna uu noqdo mayorka maaragtay Dimashq marka waxan waa wax ka balaaran waa siyaasadan oo reer galbeedkuna ay la wadaan Israa'iil oo ka badan Erdogan marka Erdogan
inaan ilownana maaha horta Erdogan sidii hore maaha maxaa yeelay Erdogan cishadu weyte waxa lala kulmay ninkiisa maaragtay directorka ama maaragtay madaxa sirdoonka dalka Turkiga iyo sirdoonada Mareykanka iyo Yahuudda waliba Shin Bet iyo Mossadka ninka haysta waxa loo keenay Erdogan bay ku leeyihiin map baa loo keenay waxa la tusay Turkiga lagu celinayo 60 iyo 70 ina dalka dhexdeeda qalalaaso destabilize lagu sameeyo sida ereyga Ingiriiska ay destabilize ay kala diraan oo qolada lagu soo hubeeyo hadduu arrinkan uu fuliyo hadduu arrinkan isagu farageliyo uu ka hortago laakiin isagana ay ku qasbantahay geopolitical reality ama interest Turkiga Kurdistaanka loo hubeeyo oo wad yeelata ilaa Kurdistaanku Syria uma joogaan Iraq in baa degan dalkeen xitaa Iran marka way isku lagu hareereysay marka Syriana waxay la doonayaa xitaa Netanyahu siyaasadiisa dafarso inuu dhinaca kale ku furo waayahay ruushka ay ka wada hadleen nuxurka hadalkooda muxuu ah sida ay sheegayaan inkastoo ay saxaafadu iyagu u dhowdu ay war cad ahayn wararkii saxaafada ay soo saareen ruushku ay soo qaateen waxay ka wada isla fahmeen inay waxay isku faham waayeen oo ay isku dhaafsan yihiin ama isku khilaafsan yihiin Erdogan waxa ka go'an xukuumadda Dimashq joogta inay tagto oo dadka la soo wuxuu leeyahay Putin haddii isaga imika uu ka tago waqtiga maanta waa dal kala daadsan miyayna imanaynin inay maaragtay vacuum la abuuro oo ay nimanka ka faa'iideystaan oo dalka la kala diro marka hasiin buu ka leeyahay ilaa intuu dawlad adag ay imanayso kugu raacsanahay in dawladda la bedelo laakiin waqtiga bedel waa waqtiga ilaa intii oo dhan ay nabadgelyada jirtay intii laga hadli lahaa laakiin isaga maanta haddii laga tuuro dee dalku kala daadanaya dalka hadduu kala daatan waxa ka faa'iideysanaya kooxahan la soo hubiyay adigana halis bay ku tahay anigana meesha in laga saaraa la rabaa ilaa ruushku base weyn oo narrative ku leeyahay isagana wax la doon in laga saar isagana maanta waa meesha ugu dambeysay wuxuu ka calaa ruushku markaa liceeb ku ahaa waqtigii Ciraaq la baabiinay Liibiya la baabiinay waxa ku dhacaysa wax la yiraahdo maarta isolation taana diyaar uma ruushku xitaa wuxuu u eriyay dowladda Putin oo ka qaaday jagadii ka qaaday jaraalkii ciidanka haystay base-ka ama ciidanka degan Suuriya haystay sidee u ogaan weyday dadka waka sidee u ogaan weyday jahbada kol qura Aleppo magaalada Aleppo leeyahay barbar qabsadeen sidee u dhici karta ilaa militariga ruushku wuxuu leeyahay u dhow waxay leeyahay sirdoon aad daawadayaal videoga kan ku xiga ee hadda halkan idiin saaran bal daawada saad xog fara badan u ogaataan waxa meesha ka jira iyo cidda is haysa shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbrit Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madarasa quraan supermarket wiish xawaaro sare leh kaamirooyinka ammaanka CCTV baakinka gawaarida goobo carruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda